waxaa jirta in dhibaatada Soomaalida halkan ay ku haysato markaan aan ka sheekeen ayadana dad badan oo u dhashay wadamada qaaradda Afrika oo runtii ayagu adeegsada magaca Soomaalida oo markaa wadanka gudihiisa ay ka sameeyay waxyaabo oo ka reeban oo ay kamid tahay waxa arkaysa dad u dhashay wadama Afrikaan sida wadamada Nigeria iyo Ghana iyo kuwa kale la mid ah oo markaa ka baayac mushtaraya waxyaabaha reeban oo ay kamid tahay droogada waxa arkaysa in haween markaa ayagu ka ganacsanay jirkooda oo dhamaantood wada sheeganay magacii Soomaalida taa oo dawladda Giriga ilaa iyo hadda markaa dib weyn ay kala kulmayso sidii ay ku kala saari lahayd dadka faraha badan ee Afrikaanka oo ayagu sheeganay magaca Soomaalida oo gaar ahaan xilliidii la soo dhaafay waxa jira dad aad iyo aad u fara badan oo saraakiisha dawladda wadanka Giriga ay qabteen ayagoo howlaha faraha ee kula jira dawladana ay sheegeen in dadka ay yihiin Soomaali arintaas marka aad eegto oo qaxootiga ah oo Soomaalida ah oo ku noolaa wadanka Giriga in haddana dad kale oo jinsiyada kale u dhashay in magacoodii ay markaa ay ku dheelayaan waatahay haddii aan ka dhaxgalo Maxamed Deeq marka hore waxaan ku weydiin lahaa meeqaad ku qiyaasi kartaa tirada dadka Soomaalida ee halka ku nool sida hore u soo sheegay dad ay ka badan tahay tiradooda ilaa 1500 oo ruux oo gebigood wada ah qaxooti oo Soomaali ayaa waxay ku nool yihiin wadanka Giriga haddii aan ku sii darsado dadkan ma Athens may joogaan ama magaalooyinka kale ama gobolada kale ayay ku sugan yihiin dhammaan qaxootiga Soomaalida ee ku nool wadanka Giriga waxa ay ku nool yihiin magaalo madaxda Athens gaar ahaan xaafadda la yiraahdo Amuniya iyo xaafado kale oo ka ag dhow ay ku nool yihiin qaxootiga Soomaalida ee ku nool wadanka Giriga ma leeyihiin wax oo maamul oo jaaliyad ah oo arrimaha hadda aad ka dhawaajisay oo ahaa dhibaatooyinka ka jira wadankaas dadka sheeganaya af Soomaaliga sidii lagu xalliyo ma jiraan wax gudiye aad samaysateen oo dawladda xiriir la leh way jiraan dadaalo ay wadaan qaar ka tirsan waxgaradka Soomaalida ee ku nool wadanka Giriga taas oo ay ku fikirayaan in ay sameeyaan nidaam ay yeelato jaaliyadda Soomaalida ee wadanka Giriga si arrimaha aan soo sheegay oo dhan ay meesha ugu baxaan oo ay toos marka dawladda Giriga ay ula soo xiriirto maamulka ay sameeysan doonto Soomaalida laakiin ilaa iyo hadda ma jiro wax nidaam ah oo ay leedahay Soomaalida ee ku nool wadanka Giriga bal haddii aan su'aal kale aan ku sii darsado arrintan marka ugu horeysa Soomaalida meel kasta ay jooga dhibaatada aad sheegtay aad ka dhawaajisay waa jiraan dad badan oo Soomaali ah oo Soomaali ahayn oo qaatay sharciyada wadamada ay tageen magac Soomaaliya ku qaateen meel kasta waa jiraan wadamadan reer Yurub balse waxa la yaab leh dadka Soomaalida oo intaas arkaya dhibaatada ku dhacaysa magaca Soomaalinimada aan haddana ka dhiidhinin oo wax ka qabsan ama dawladdii la xiriirin taasa ajaayib laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo halkaas soo malahan jirin Soomaalida safaarad u fadhido sidaan macluumaadka ku helayno wadanka Giriga waxa uu kamid ahaa wadamada markaa taabacsan ama laga hago safaaradda wadanka Soomaaliya oo ku leeyahay wadanka Turkiga taa ayaa howlaheeda iyo amuuraheeda fulin jirtay oo Soomaalidii xilligii hore ku noolaa jirtay halkan waxa amuurahooda iyo howlahooda qaba jiray safaaradda Soomaalida ay ku lahaa jirtay wadanka Turkiga magaalo madaxdiisa Ankara واتحي الرمهاس أودن أو مانت نوغ هذا الشيء
dadka dhalinyarada ah halkaas jooga iyo dadka u shaqo tagayba haddii aan dadka qaxootiga ah meesha ku ah ay nolol ku haysanin maxaa dan ah ay rabaan hadda inay sameeyaan maxaa future-kooda ama mustaqbalkooda muxuu yahay wallahi gebi ahaan markaad dadkan Soomaalida halkan ku dhibaataysan aad la sheekaysato ruux kasta waxa uu marka uu ku fikirayaa sidii mar wadankan ugu bixi lahaa ma arkaysid qof Soomaali ah oo ku fikiraya inuu ku sii nagaado wadankan sababtoo ah wadankan kama helayo qofka Soomaaliga ah fursado marka noloshiisa wax u qabanayo sida fursado shaqo iyo fursado waxbarasho iyo wixii la mid ah marka ruux kasta Soomaaliya marka aragto waxa uu kaaga sheekeenayaa sidii uu jaanis ugu heli lahaa qaabkii uu marka ugu sii gudbi lahaa wadanka Gariiga oo ma jiraan Soomaali marka ay ku fikirayeen in ay halkan ay sii degaan oo ay marka ay ku sii nagaadaan waatahay kaasi wuxuu ahaa weriye Maxamed Deeq oo nooga soo hadlayay dalka Gariiga magaalada madaxdeeda Athens waa mahadsantahay Maxamed okay adaa mudan